doorasha la galay si wanaagsan oo dimuqraadiyada loo galay isbahaysigu waxay heleen 52 xubnood xisbi xaakimkuna waxa heleen 30 xubnood haddii ay jirayso dimuqraadiyada daacadnimo golo wanaagsan la rabo waxay ahayd madaxweynuhu haneeyo oo yiraahdo waan idin sii daayay sidii uu haneeyo hadalka cadde oo haddii yiraahdo de waa la majority-ga baa laga leeyahay food baa la qaadaya waa laga leeyahay inuu sida waxa sharaf u ahayd inuu ku hambaliyeeyo oo bahasha uu sida ku sii daayo laakiin ma dhicin oo madaxweynuhu ilaa hadda waxa seegtay inuu 82 xildhibaan ee soo baxay xitaa inuu wada hambaliyeeyo oo u yeedho oo la kulmo muu awoodin wuxuu u yeedhay intii ka soo baxday kulmiye oo kaliya ayuu la shiray oo u hambaliyeeyay xisbigiisii buu la shiray baa leedahay xisbigiisii kaliya buu la shiray laakiin soo xaq uma leeyahay ka gudoomiyaasha lama shirin laakiin waa madaxweyne qaranka madaxweynaha qaranku markuu yahayna annagaba waa madaxweynaha iyagii xildhibaanadiisa baanu u soo baxay qarannimaanu matalaynaa mararka qaar xisbiyada way ka tagaysaa inuu annaga lafteeda noo yeedho noo hambaliyo noo salaamo bay ahayd taasi waa mid kale waxa dhacday inuu madaxweynihii ka tagay olole kale inuu bilaabay oo u yeedhanayo axsaabtii mucaaradkeed dad uga yeedhanayo oo aan la leeyahay hebel waxa haya hebel baa inoo haya aad moodo inuunu ninkii sharafta lahaa maxaad uga jeedaa sida dadkii loo caayayo caqligooda loogu cayaarayo ay u dhimanayso damiirkii xildhibaanka xitaa loo dilayo in la leeyahay ama lacag yar loogu gacan haadinayo ama leeyahay hebel baa inoo haya wasiir hebel baa haya caaqil hebel baa inoo haya oo keenaya ka tirsanaya oo ay tirsanayaan tire aan toodii ahayn waqtigeena uu dheeraynayo marka taasi wata aan walaaca badan uga abuursan leenahay madaxweynuhu sidii uu qabtay doorashada cabsi bay idinku abuurtay miya mucaarad ahaan inuu sidaa sameeyo madaxweynuhu cabsi naguma abuurin laakiin cabsida nagu abuurtay waxa weeye dhaxal xumada golaha ku soo socota iyo in durba in golihii la korreebta garaynayo lacag lagu iibsanayo dadnimadooda iyo daroonkoodii la dilayo taas ayaanu ka baqaynaa oo warwar nagu haysa ma aha inaanu ka baqayno aan halkaa ku dhameeyo ma aha inaanu ka baqayno inaanu kalsoonidii haysano iyo tiradii badnayd oo aanu food ka helayno laakiin waxaanu walwal ka qabnaa xumada madaxweynaha iyo xisbigiisa ay ugu gacan haadinayaan ragga ka soo baxay asxaabta mucaaradka ee ay durba qabkoodii tayadoodii iyo daroonkoodiiba ay dilayaan berrina aanu nimay la xisaabtami karan dadweynihiisa aanu noqonayn ee uu noqonayo nin shilima qaatay oo ku codeeyey oo xisbi xaakimka uga yimid cumar xildhibaan cumar jaamac faarax adigoo mahadsan ma waxaad leedahay xildhibaan bulsho soo dooratay oo dadkiisiiyo deegaankii laga soo doortay oo uu madigeysatay inuu shacbiyad ku matalo golihii baarlamaanka ayaad leedahay lacag baa lagu iibsanayaa oo damiirkiis baa la iibsanaya qofnimadiis baa la iibsanaya ma dooda oo weliba mucaarada oo isbahaysigiina ka mid ah oo 52 mudaneed idinku haysataan ka mid ah ayaad sidaa leedoo aad leedahay waa la iibsan karaa miya dooduma taasa waxa weeye dooduma taasa maya xukuumaddu waxay isku dayayaa xisbigeedu inay u gacan haadiyaan u yeedhaan iyagoo laba arrimoodba samaynaya mar waxay ku beerlaxawsanayaan qabyaalad oo waxay leeyihiin adigoo reer hebela waad noo timaadaa marka labaadna waxay ku beerlaxawsanayaan lacag oo ay leeyihiin waad dhiig baxday deyn baad gashay kharash baa dhacay wixii baanu kaa bixinaynaa oo dayntii baanu kuu celinaynaa mar waxay noqonaysaa labada arrimood oo mar qabyaalad lagu beerlaxawsanayo mar lacag la leeyahay baa lagu siinayaa mar la leeyahay mashaariic baa lagu siinayaa iyo lacag baa lagu siinaya dayn dadkaagii taasina waa mid dilaysa damiirka iyo tayada iyo shakhsinimada xildhibaanka ku soo baxay cod oo maantana aanu ka baqayno tii aanu islahayn bedela oo gala xalaala oo xukuumadda la xisaabtama sameeya inay maantaba naga bedelaan oo ay ku ururiyaan inaanu noqono golihii shacabka uu ka sheekeynayay waan ku soo noqon doonaa xildhibaan axmed nuur guruuje waa tartamaysaa xisbiga kulmiyeed ka tartamaysaa eediinna waxa weeyaan inaad xildhibaanada iibsanaysaan inaad lacag ku iibsanaysaan inaad qabyaalad ku ololeynaysaan inaad xildhibaanadii qiyamkoogii aragtidoodii bedelaysaan inaad hanayn laadihiin in xisbigiinna iyo madaxweynihiina arrintaas samaynayaan doodaadu maxay tahay muxuuse yahay rabitaankaaga shakhsigeed ku doonaysa guddoomiyenimada shir guddoonka horta sida aad u sheegtay waxaan ahay musharax u taagan guddoomiye ku-xigeenka gobaada golaha wakiilada saaxiibkay cumar
وكيرا بعد وحوجي حمد كامبين كتم يا كيرا بدر سينوغنا هاي ودكين ورد صدق حسبي بقى كتير شرعية حسبي سبهاي سلا يدا ودكين كتير شرعي ما تشلو صدق حسبي بقى ودك كتير قدم خلبات ترى وحوي سيستم كدولة ده نقولنا هم أهمية برلمان تريو رئيس الوزراء وأهمية جمهورية أو مدحوينه يو إن برلمان يو بورتيه رئيس الوزراء برلمان مركز يشيلان الدولة البرلمان كتبه حسبيات وسبايستانو كلش بالينا دولة ده جمهورية نظام كم استعمالان لكن حسب كلمية يوعد أو معارض هذا هروس استعمالي مركز محد يديني مك استعمالان وطني يوعد واحد ديدا ما شيء فرصنا سياسة ده مر صعتة بهاي لكن واحد شرعي ولا هذاك صدق معها هذاك هو اللي شكرا لا بحس بهوس حوي يسوي دي سكران لكن أرين لقود ده ذكر شرعية معها أرين دوني إن تابتنا وحوي وحلو شغينا يقضب كافر فرتناد الدستور كسومان لينو شيء هي سيد شرقتهم صباحية وحنا قنايا قضب كاسنا وحنا بورنا يا مالك الله بدي يستيتك مثلا يصير مادان مركب مدحوينه وقد بدي سلم أيوة الباب كبحه نيك وجوده وين قلاه كامل يوم بورنا يا مشرحينا كدبنا اللي بي يستيتك مثلا قف اللي بعد دونهم بوتاجي سيد صاحب كي موديو معها متكلم سيدا إصبحي شان شرعي هنا السياسة وتشرو أيوم بحبنا معارض كتر سنة تهريبي له بينك لنا لو مش شيء ما حد يقول كذا ما حد يقول كذا حلبان هذا لك عداه ما حد تهريب يقول كذا حلباننا معارض وتهريبي ما حد يقول كذا waxaan uga jeedaa kol hadii aan saddexdii xisbi midina aqlabiyad gaadhin waxa sharciyo nidaam ahayd in 28 mudan si xorriyad ah qof waliba isu sharaxo mudanayaasha saaxiibadiina ugu qanciyo mucaaridku baa arinta farsamada siyaasadeed sidii berigii ay kulmiyeeyo wuxuu farsameeyeen u farsameyn kari waayo qaybina waa taa ku adag ee waxba la kala iibsanaya qaybtooda kalena waa taariib oo xisbiyada kale meeraysanayaan waa intaas wax meesha ku jira way xildhibaan adoo xildhibaan golaha wakiilada baatay gobolka Maroodijeex waad ka soo baxday shirkidoon baad doonaysaa xisbigaagina waad ka doonaysaa mucaaradkiina wada eedeynaysaa miyaanad mucaaradku cod ka doonayn ilaa xisbigaagu ma haysto aqlabiyad kugu filanay oo aynu kugu doorto adiga mucaarid iyo muxaafid wax dooranaya ma jiro waxa wax dooranaya 28 mudane waxaan diyaar u ahay 28 mudane inaan ku qanciyo inaan walaalkay Cumar anigu booska kaga fiicanahay awoodaan waan leeyahay waa bay tahay wad ma santahay xildhibaan oo ma santahay إيار سوى دوّر شركتهم كانوا يكونوا قندورنا حلمانا كلنا سامي عرفتوا ذا لاب صالح حسن بحول يبرخ بطنه يكونوا قندورنا بس على كل ما سين يا هرتا بل عرفتوا كقبوا شركتهم كيدو ديسا وحنورنا يا إله وقولنا هنقول عذابي إحنا هنوقتلي صاحبك عمر جامع دودي سوي ما يقنعين لبا قضب حدود صوع عدينا أو أي عضة هي أنا قلنا اللحو قال بانا مدوال عدي كريا أنا قلنا بريس بلوان ديتين هيتا مدنا لما عدين كريا وهو سوقا لك الشباب مصبيحة العكو يبصر يوم ملايين كم بحين إياه فوق ورلعك تشيب كيس كشادي وما صابح ده أرت العج إياه هكبا قنينا مدبان سديدنا وحلا يا بسكول ميل لما وده شوكته ورنا يسمى سيجرا تنو قبيلة ده وشيء جيو وحنقرا يعني وحكي شراء لمن اللي يجي بربري كصابحه أو حسب يوعد بي كصابحه أنا هو صدق إيانين هرجيسة كصابحه يسوى أفر معها أفر تاسبه وعد بي كصابحه وحلا يقول إيه ده وين أركيه فرتها الله يقول وحلا يسوي رير من رير بلا متيدين ورحكا صومرة
nimankaasi markii hore kulmiye inay iska soo sharaxaan waa loo diiday ucid baa bannaanka ka qaatay oo soo saaray hadday taasi jirto dee qiyamka kuwaas inaan inta kale ee sababaha uu sheegayey xildhibaan guruji ilaa meesha waa siyaasad waxbaa la kala xadxadayaa dee taa kale ee siyaasadda oo dhan waa wax caadiya oo waana golahay laakiin taa inta gaarka ah saamaysa weliba waxaan ka baqayaa inay keento taas ragga lama xiinaya taabtee markaad intaada reer hebel xaggan soo mariso in kuwa reer hebel ee xaggan ku jiraan dayraan daarna xaggan aanu marnay assalaamu calaykum cali u mahadsan yahay barka jaamac batuun baan kelmad ka siinayaa adoo ku soo dhowaanaya dooda shirgudoonka maxay tahay aragtidaadu aad ka qabto adigoo isbahaysiga mucaaradka ka mida xildhibaanka ugu codka badan 28 badan ee Soomaaliland laga doortayna ah maxay tahay aragtidaada ku saabsan waliba aad koobaysa adigoo mahadsan iyo aragtidiina isbahaysiga iyo dooda halka ku ururinaysa maxay tahay horta waad mahadsan tahay maxamed waxaan doonayaa maxalul nisaaca dooda shirgudoonku inaan halkeena ka dhacayn madaxtooyadana ka dhacayn xisbigudina ka dhacayna waxay ka dhacaysaa baarlamaanka dhexdiisa wax dooranayaa waa 28 xildhibaan oo hal qof oo shirgudoona inta iska dhex doortaan qofka ugu da'da weyn maalinta daadihinayo waxaan isleeyahay baani mayno muddo bilaba madaxweynuhu haysta muddadaa bisha inuu digreeto ku soo saaro maalinta kalfadhiga gooluhu fadhiisanayo baa ka xigtaa cidda guusha heli doonto ilaahay xaggiisa ka qadaran inaguna aynu ogaan doono waxaan isleeyahay anigoo ixtiraam u hayaa aqoonta kartida mabda'a aragtida ay xambaarsan yihiin xildhibaanada hintaan ka arkay inay shirgudoon dalka iyo dadka iyo diinta u dhaaran doonaan wax badan u qaban doonayna horta dooran doonaan ayna ku dooran xisbi ayna ku dooran xukuumad iyo xulafaysi kale maxaan saa u leeyahay iligoo meeshan mas-uuliyadda taallaa ma aha mid miiskan caawa lagu falanqaynayo iyo mid madaxtooyada lagu goyn karayo mas-uuliyadda meeshan taallaa iyo masiirkay mudanayaashu xambaarsan yihiin waxa weeyaan hooyada milicda fadhida ee bilaadalaayada ah ee cashuurta laga qaadayo hooyada gabilay ariga ku dhaqanaysa ama ood weyne ariga ku dhaqanaysa ee ilmaheedu intuu bariis yar oo cad qaado iyadoo 9 bilood ku jirta oo bilaa MCH bartaa loogu geenayo bariis yar oo cad xildhibaanadii nolosheeda ka hadli lahaa ee cashuurteeda u ilaalin lahaa ee xeerar ka soo saari lahaa ee hay'adaha xukuumiga la xisaabtami lahaa ee mas'uuliyadda ku dhaaranayeen ee dadku codka labada habeenimo kuyuga u galayeen badbaadin lahaa ayaa baarlamaanka laga rabaaye lagama rabo in la yiraahdo isbahaysi baa qaadanaya iyo Umar baa qaadanaya Ahmed baa qaadanaya Ali baa qaadanaya waxaan ku rajo weynahay isbahaysiga sababta keentay waxa weeyaan 10kii sano u dambeeyay xukuumadda kulmiye talada dalka haysay ogaalkay curinta xeerarka ee taabanaya nolosha bulshada 3 xeerun baa baarlamaanka gudihiisa ka fulay inta kale xukuumadda kaga imanaysa waxaan ogahay madaxweynuhu maalintuu yimaado inuu qudbadeeyo ama silaayada ama Muuse ahaado banaan ka baxo oo la oran miisaaniyadda su'aal aan laga weydiin oo aan xildhibaanadu ayna dareenka shacabka ee dhabta ayna qaadi kareen waxaan ogahay khayraadka dalkeena inay wasaaradaynta iska bixiyaan dad ajnabi yimaadaan macdanteena bilaash ay ku gurtaan oo baarlamaan la xisaabtamayaan jirin mas'uuliyadda baarlamaanka sugaysa waa tukoon shirgudoonka sababta markaa isbahaysiga keentay baan doonayaa bartayna dadka iyo Soomaaliland waan koobayaa sababta isbahaysigan keentay waxa weeyaan war ma habboon tahay baarlamaan sharciga ilaaliya ma habboon tahay saddexdan dhadhaare isturjumaya qodobka 7 firqadiisa labaad ee leeyahay waliba awoodda koowaad firqada labaad ay sheegayso awoodda koowaad in xeer dejintu iska leedahay cid madaxweynaha iyo xukuumadda xakamaysa cid dalkan iyo dadkan u tudhaha ya inoogu habboon sida wax loo qaybin karayaa dawladdu maamulkiiba haysataa maaliyadiiba haysataa madaxweynihiiba haysataa militarigiiba imkaaniyaadkii wax kasta u fududeynayba haysataa maadaama dad aynu ka soo qaadanay codkoodii
sidaynu dadkeenna wanaagsan aynu u saari karaynaa miiska oo baarlamaan xisaabtan keeni karayo hintan iyo inta ka dambaysaba mateli karaya see meesha u iman karaya waan isbahaysigu yahay ma aha jeclaysi ree hebelna la jecel yahay ree hebelna la neceb yahay iyo xildhibaan hebel marka waxaan isleeyahay waan ururinayaa anoona faanin bartan madaxweynaha waxaan ii kaadi madaxweynaha waxaan si sharaf looga codsanayaa madaxweyne doorasho qurux badan baad qabatay taariikhdu aday kugu xusaysaa adigaas kale kaa xistiimayno siyaasiyiin oon ku kala duwannahay laakiin doorasho qurux badan oo libinteeda lahayd baa iminka shirgudoonka ila meeraysada ka daayo waynu sognahay ilaahay wuxuu yidhi wala taclamunna naba'ahum bacda xiin somalilan way ogaan doontaa cidda aqlabiyadda leh bannaanka iyo baarlamanka madaxweyne isugu keenkeen anigu doodeedu waa intaad mahadsan barkhad microfonka hayso su-aashaydu waxay tahay waxaad tidhi dadka wanaagsanayna meesha geyna 28 xildhibaan baa tihiin doodna way idinka dhexaysaa waana mid siyaasi ah doodda axmed nuur guruujina waxa weeyaan 3 xisbi inay siman yihiin midna aanu aqlabiyadda lahayn duuna duray isbahaysigeena ma waxay adiga marka aad kala saaraysaa ka wanaagsan iyo ka xun inaad kala wadataan isbahaysiga iyo xukuumaddu maxay tahay su-aashaada hadalka caddee waxaan uga socdaa dee 28 xubnood wax dooranaya bilowgiiba aniga ku furay waanu dhaaranaa dhaar baa meeshan taale mar labaad baan kugu celinaya danta dalkii dadka lagu dhaaranaya yaa hogaamin karaya baarlamaanka noqonaysa ila cod baan anugu ku fadhiyaa dad baan wakiil ka ahayo somaliland baan wakiil ka ahayo ilaahayna maalinta qiyaamaha codkan wuu weydiinayaa shacabkan cadceedda ii taagnaa waa lay weydiinayaanoo qof anoona cidana ku ixtiraamayn cabdirasaaqna ku ixtiraamayn cumarna ku ixtiraamayn markaan golaha yimaado qofka isa soo sharaxeen u arko inay somaliland ku weyn tahay inuu qof qiime leeyahay oo qiim leeyahay qof annagana hogaamin karaya yahay horta dooranaya barkhad su-aashaydaan ku weydiiyo madaxweyne wuxuu sheegay inuu yaasiin maxamuud xiir faratoon nin somaliland ku weyn yahay marka yaasiin baa dooranaysa adu somaliland ku weyn baa tir soo maaha doodaad ma taasa maya anu qof islaamaan ahay islaamku 3 sharduun buu eegaa qofka aqoontiisa awooddiisa iyo ammaanadiisa waa mahadsantahay amaya dhammeeyo meesha cidda imanaysaa markaad leedahay maxaa la kala dooranayaa qolada kulmiye waxay keentay xildhibaankoodii faratoon annaguna cabdirasaaq baanu keennay anigu imikaan somaliland u caddaynayaayee yaasiin faratoon waa nin odaya laakiin nasashuu u baahan yahay waa waqtigii nasashada oday haddaa imika la odhan lahaa guddoomiyaha golaha wakiilada kulmiye wuxuu keenaya axmed nuur gureeje dee nin isku filaanu nahay oo sharci yaqaano oo dhalinyaro oo hogaamin karaya oo dee guddoomiyaha golaha isagaaban sii lahaa anugu oo dee ammaanan wadaa marka anigu cabdirasaaq taan ku fadilayaa waa taa waad mahadsanta waxaan siinayaa xasan dhuxul laab saalax oo xisbiga kulmiye ah doodiisa iyo dooda barkhadna balaan isku eegna insha allah waan soo dhaweynayaa ilaahay baa keligii mahad leh waxaa laga hadal ma dheera xildhibaanka hadlaya aynu dhegaysano aragtidiisa siyaasiga ah ee shirgudoonka waxaa laga hadlayay shirgudoonka golaha wakiilada kolley toole sidaynu ognahay xisbiyada kulmiye waxaa u taagan faratoon cabdirasaaqna xagga kale u taagan yahay 28 mudane golaha yimid baa dooranaya kii ilaahay u qorana wuu imanayaa waxaa laga dhur sugayaa uun marka uu madaxweynuhu soo saaro bisha gudaheega maadaama maxkamaddii ay ku dhawaaqday in xildhibaanadu fadhiistaan ninka ugu daadaweyne hogaamiyo siduu qodobka 44 sheegayo ama xeer hoosaadka golaha wakiiladu laakiin waxaad moodaa in fahan qaldan laga haysto saaxiibadii baan maqlayo marka laga hadlayo faratoon iyo cabdirasaaq inta badan waxay sheegaan in cabdirasaaq ku haboon yahay sidii barkhad sheegay in ninka la yidhaha faratoona uu nasasho u baahan yahay horta inagu miyaa layna aqoonsaday cabdirasaaq uu firfircoon yahay baa laga sheekeeyaa ma maratoon buu ka qayb gelayaa haddii maxaad uga jeedaa maratoon buu ka qayb gelaya yani ma orod baad leedahay maxaad uga jeedaa su-aasha cadde xildhibaan adoo mahadsan cabdirasaaq ma durayo runtii inuu dhalinyaro yahay
inuu nin wanaagsan yahay inuu firfircoon yahay baa lagu soo celceliyey waay marka haddii orod loo baahan yahay cabdisaaq langeyno orodkaa inooga qayb gale laakiin waxaa loo baahan yahay isku hayn 82 mudane oo 82 barkada meesha jooga yaa isku hayn karaa waxaa isku haynayaa nin dul leh wax badan u soo joogay dastuurkan ninka la yidhaha maxamed faratoon ku qoray waxbuu ka qoray lix jeclo fara badan buu dalkan ka leeyahay waa waayo arag taasaanu ku xulananaa qodobka kale maxamedow aan doonaya inaan saxo xildhibaanada saaxiibaday waxay ku celceliyeen lacag baa kulmiye bixinaya cajiib lacagtan la bixinayo waran waxaan leeyahay xildhibaanada mucaaradka cayda ka daaya yaan lagu gafi iligoo waxa weydiin qiyamkooda waan ku siinaya microphone waan ku siinaya Umar adaa u jawaabaya waan ku siinaya waan ku siinaya su'aashaada waad weydiin doontaa waan ku siinaya anaa ku siinaya Umar Jaamac way waqtigiisa ha dhamaysto cali isoo noqo aynu ismaqalno way xildhibaan ku soo dhawow xisbiyada mucaaradku arrinta lacagtaad ka hadashay ee laydinku eedaynaya xisbigiina kulmiye inaad siinaysaan xildhibaano mucaarada waniyahow shakhsiyan anuu meel lagu bixinayo lacagta iyo cid bixinaysa afka mucaaradka way ku jirtaa hadiyo jeerna way ka hadlaan xildhibaano soo daalay soo tartamay inay hogaamiyaan golahan iyo inay ka mid noqdaan iyo inay wax saxaan in la yidhaahdo lacag baa la siinayaa meesha ma qabato hadday dhacdo oo sidaaba ay ku soo celceliyaan markii hore aan odhan karaa ayay xulashada waxa xumayd mucaaradka haddiiba laga iibsan karo ama laga kaxaysan karo maxay ka soo sharaxayeen Umar baa ka jawaabaya way Umar Jaamac Faarax maxaad soo sharaxayseen haddii laydinka iibsan karo ama laydinka kaxaysan karo xildhibaanada aad ka warwarayso eed walaaca ka muujisay markii dhaweyd horta waa runtiisa mid intaana su'aasha weydiin waxaan jecelahay inaad ka jawaabto taa horta waxaa dhacday waqtiyadii ugu dambeeyey inay dadku axsaabta oo dhan wada tegayeen dadkan badankoodu hadda naga tegaya waxay ahaayeen dad kulmiye markuu hodareba ka tirsanaa oo ka soo waayay in ay platformkii ka helaan oo iska sharxaan dabadeedna haddana xisbigana yimaadeen inkastoo form laga saxay commitment oo lagu dhaariyey waxay ahayd markaa qofku inuu ku adkaado oo yidhaahdo principally anigu xisbi baan ka soo baxay body line policy-giisa baan ku dhaqmayaa cidduu soo sharxayaan u codaynayaa waxay ahayd inuu adkaysto oo ku adkaado laakiin culayska ay xisbiga xaakimku saaray ayay tani ka mid tahay aan fahamka kuu soo dhaweeyay ma waxaad leedahay xildhibaano markii hore aragtida xisbiga kulmiye aaminsanaa oo xisbigii fursad ka soo waayay oo xisbiyadii mucaaradka yimid ayaa imikana aragtidoodii dib ula noqonayo xisbiga ay fursadda ka soo waayeen qaar ka mid dib ugu noqonayaan doodaadu ma taasa aragtiyo lama noqonayaan qofku wuuba ka yimi waaba ka soo leexday xisbi buu commitment la galay form buu saxay dhaar baa laga saxay haddana markii ay timi waxa weeye eedaasoo dhan waxay xisbi xaakimka waayo foomkii caawan soo ilaabay inaan soo qaaday qof kasta commitment waxa la waraaqa laga saxeexay xisbigu ku biirayo inuu xisbiga joogayo inaanu ka tagayn inuu codeynayo siyaasadiisa laakiin waxa bedelay waxay noqotay cadaadiska kaga yimi xagga xisbi xaakimka iyo dadkoodii oo ay u yimaadeen cadaadiskii lacag baa laga hadlo lacag baa ugu badan marka lacagtiina way dadafeeyeen oo waa ku diiday ma lacagtaa iska badaa laakiin xitaa sida loo influence garaynayo way anigaygana la yimi iska daa wax kale lagu yidhi deyn baad soo gashay waad soo daashay waad dhiigbaxday waxaanu ku siinaynaa waxaanu ku haynaa gudoomiye ku-xigeenkaanu ku haynaa magaciisii baad ku xigaysaa ma kulmiye anigaaba kulmiye leeyin buu ka diiday بكل صراحة وحني وحلا قرينيو oo la qarinayo beena ma aha laakiin su'aal kale oo weydiinaya saaxiibay waxaad baad u leedahay waxaan weydiinayaa guruuje aad buu mahadsanyahay waa murashax xisbiga kulmiyuna murashax ka yahay waana tartamayna laakiin waxaan ogahay in laga guuro laba cid la qaatay xisbiga kulmiye maxay uga guureen xisbigoodii iyo kaadiriintoodii u qaadan waayeen guruujo kale iyo raggii ka soo baxay ee aqoonta leh ee kartida leh ee xisbiga muddada ku jiray oo ay u qaadanayaan dad ay xisbiye kale ka soo qaateen su'aasha aan weydiinayaa tartanku idinku idin
dhexeeyaa adiga guruuja aduu kula tartamayaa manuu sheegin meel xisbigiisa uu ku qaatay laakiin isagaa ka jawaabi doone ma laabsalax baad weydiinaysaa su-aasha laabsalax baan weydiiyey way waan isogna waxba nooma kala qarsoon waxay qaateen laba ucud ka soo baxay iyaga ka jawaabaya ayay fardiska dhibiidka u qaateen iyo ku-xigeen guruuja ka jawaabaya marka maxaa loo qaadan waayey raggan han kale maxaa loo qaadan waayey raggan han kale ee guruuja ka mid Umar waa doodaada ay rag kale ka mid yihiin waa doodaada maxaa u qaadan waayeen oo ucud looga qaadanaya Umar waa doodaada iyo way guruuja ku soo noqo kolley xildhibaan axmed nuur maxaa loo qaatay buu yidhi laba xildhibaan oo xisbiga u cida oo adoo kulmiyaa lagu qaadan waayo xisbigaa kulmiya kaaga tegey ku soo dhawow mise waa doodiinna idin dhexaysa adig iyo tartankiinna cumar maxay tahay horta saaxiibaday xagga xisbiyada way laga yaabaa inay iga horreeyeen laakiin looyar baan xoogay ku raagayo kubadda markay ka yaro dheeraysa lana soo yaro qabqabanaya kubadda si aanay uga gelin koonaa waxa weeyaan horta sida wax loo dooranayo saaxiibkay barkad baa dhameeyey wuxuu yidhi 82 qof baa wax dooranayo qof walba iyagaa qiimeynayo taasaan la qabaa horta taas waa caynka arrinta labaad ee aan saaxiibaday oo dhanka ka duwanayna waxa weeye horta sharaxaadan la sheegaya rasmi maaha madaxweynenimo bannaanka laga sharaxaya iyo waxaa maaha qofka 82 ka mid ah maalinta golaha dhexdiisa gacanta ka taagay inuu sharaxan yahay ayuunbaa musharaxa qof suuqa laga leeyahay waa musharax weli may gaadhin araajida cidda loo gudbinayaana waa qofka golaha ugu daaweyn markaa weli musharaxiin rasmiyaba ma hayne musharaxiinta rasmigii waa maalinta la gaadho qodobka kalean ka jawaabaya waxa weeye ee saaxiibka barkhadna aad moodo inuu ku yara rafto madaxweynaha horta madaxweynuhu muddadaa yaree 30 maalmood ee sharcigu siiyey buu haystaa maalin koob iyo 30aadna sharciguba ma siinin haddii 30kaa dhexdooda uu isugu yeedhi waayo 45 cisho golaha iskii isugu imanaya 30kaa inuu dhexdooda ku ciyaarina sharcigaa siiyey markaa qofku wuxuu xaq u leeyahay in laga codsada dimuqraadiyadda kuma jirto 30kiisa maalmood ha iska qaato maxaad uga jeedaa in laga codsado dimuqraadiyadda kuma jirto dee dimuqraadiyadda miyaa la isbaryaa la isma barya dimuqraadiyadda madaxweynuhu 30kan cisho isagaa leh wiilka ugu horreeya ku qaban karaa ka ugu dambeeya ku qaban karaa innagoo muddo tirsan karna maxaynu u baryaynaa eeg xaqiisa waa loo deynayaa isagaa maslaxadiisa og maslaxadiisa siyaasigaa buu ku salaynayaa marka hadalka halkiisa loogu yimaado lagumana eedayn karo laakiin markay muddadaa dhaafto madaxweynaha way ka wareegtay mas-uuliyaddaas isaga uma taalno golaha u taallaa golaha iskii isugu imanaya su-aasha cumar laakiin madaxweynuhu 30kii maalmood wuxuu raajinayaa bay ahayd dooda barkad dana siyaasi oo inuu xildhibaanada mucaaradka kasbado oo uu isagu baashii haneyn waayo taa isagaa xaq u leh sharcigii baaba siiyeyba sharcigii baa yidhi madaxweynuhu wuxuu haystaa buu yidhi 30 maalmood oo laga bilaabo marka natiijada lagu dhawaaqo aqoonka maxkamadda marka ama siyaasadda ha u eego ama caafimaadkiisa ha u eego ama waqtigiisa ha u eego isagaa leh marka aan waqtiba ku lumin maayo arrinta kale ka hadlaya waxa weeye arrinteenu kulli waa lagaa tegey maxaad ka qabtaa ilaa waa lagaa tegey buu kori adiga arrintaa anigoo si saraaxada uga hadlaya isbahaysiga waa laba xisbi mar walbana somalilan waxaad moodaa laba xisbi oo adag iyo newtron iyo barotron dabkuma waynayo mid saddexaad oo u dhexeeya halka dhibku ka jira horta waa xisbiga saddexaad oo aan layliga ka weynaanin xisbiga saddexaad ee somalilan mar walba waa layli ciyaartu halkay ka dhabaqday waa halkaa cumar jaamac maxaad uga jeedaa xisbiga saddexaad ma cid baad u jeedaa waxba hadalkaada ugu sii hadalka nusub waa laga yara taataabtaa su-aashii cumar ka jawaabsomalilan macaaride maxaafid baa ka jira iyo xisbi labada u dhexeeya wax kaloo meesha yaallaa ma jiro cumar jaamac iyo in adeerkiibaa reerkooda qoratuur sameeyey arrinta wax dhabqisa waa arrintaa dabeetana in adeerkiisii ay qoratuurka ku kala heleen ayaa xagga iyaga tahriib laleeya wuu ku yimi annagu maanaan arage sababtaa ma aha markaa waxaan leeyahay qoladan saddexaad ciyaarta dhabaqa ha ka dayso iyagoo xisbiga cida tartanka ay ka qayb galaan sidan aniguba anigoo kulmiyaa uga qayb gelayo isbahaysina ma jiro tahriibkoodana ha ceshadaan aniguna waan taaganay xisbiga guuri karaana ma jiro waxaan siinayaa laabsaana su-aasha xildhibaanka barqad su-aasha xildhibaanku ku weydiiyey maxay tahay aragtidaadu hadal ma dheera aynu ismaqalna insha allah
aynu ismaqalno waan idiin mahadnaqayaa waqtiguna wayna hayaa anna culays baa saaran dooduna way sii farabadatay waqtigiina uu dheeraaday markaa ku soo dhawaada laab saalax su'aashaad weydiisay xildhibaanku maxay ahayd waxa weydiiyeen xisbiga kulmiye muxuu waxaa soo aqoon-yahan buu haystaa kawaad wuu ka jawaabay guruuja ka jawaabay talacagtana waxaa ka jawaabay laab saalax ma kelmaddaa kaaga bannaan maxbaa kugu hadhay xildhibaan dhuxul horta doodu yaanay naga noqon ila muran waay cumar wuu inaga warran yahay wuxuu yidhi gudoomiye ku-xigeenka koowaad baa lagu siinayaa baa laga yidhi waxaan filayaa inaan cidina xisbi maxaafida diidin oo jaga intaa lag bixinaysa laakiin guruujaaba sheegayoo qorutiirka dhacayba horta xagga cumar u tegey qorituurka waa noocday qorituurka waxaad uga jeedaa xaggee baan anigu u tegay anigu xisbigaygii baan joogaa halkaygii baan taagna anigu meel waa in yar waay cumarow xisbiga u cid baad ka soo baxday xisbiga u cid ee aad ka soo baxday iyo xisbiga waddani intaad halkaa u baxdeen ayay idin soo dhigeen haddana xaggan kale sidaa sheegaysay dee xisbiga u cid unbaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad u jooga taasi horta waa tagu dirtay idinkunbaa xisbi ahaan kala baxay laakiin haddaa soo baxdo annagu waabanu kuu ducaynaynaa inkastoo guruuji siduu sheegay yidhi dee anaba kaaga habboon taasina kaftan hayga ahaato midda meesha ku jirta waxaa weeye horta ninkaa xigiya hawl ninkaa xigo midna laguma degdego afartan xildhibaan waa xildhibaanada cusub bay ka mid yihiin dadku aad bay u tuhmayaan meeshana waxay ahayd un maxaa laga filan karaa arrintan inay shirguddoonka soo koobno ma aha kullay tole 5 sanaan is hor fadhiyana sidoo cali guri sheegayna kaala ila muran iyo golihii shacabka yana arrintii noogu ekaan xisbiga kulmiye waxaan aaminsanahay inuu xisbi giyaadiida yahay nin weyn soo sharaxeen guruuje u tartamaya meel aan ku soo bandhignay labada kale ma jirto laakiin dimuqraadiyadda ka dhex jirta xisbiga kulmiye ayaa hanka labada ninba cadaynaysa kii xaq u leh soo bixi doonaa iyagana waxaan leeyahay soo barbaara soo dadaala cumar adoo mahadsan cumar barkhad jaacan batuun baan siinayaa microfoonka barkhad ku soo dhawow barkhad baan ku soo dhaweynaya waan kugu soo noqon doonaa cumar waan kugu soo noqon doonaa adoo mahadsan waqti dheer baynu qaadanay isagaa xaq leh xildhibaan barkhad baan xaqiisa siinayaa isagaa mudduu dooda ka maqnaa ku soo dhawo barkhad adoo soo koobaya intaanan cali guraysiin kelmadda u dambaysa ee shirguddoonka oon dooda su'aalaha aanan u gelin aragtida ay ka qabaan xildhibaanadani dooda shirguddoonka ee idinkaydu ku soo wareegtay iyo tan aduu aad ka qabto faratoon iyo cabdirasaaq khaliif ma kelmadaad ka odhanaysaa mise waan kaa gudbiya may waxaan horta weli doodeennii waxaad moodaa imaka inay maxaluulisaaciba ku soo ururtay shirguddoonka waay waan ku celinayaa in shirguddoonka miiskana lagama gooyo madaxtooyadana lagama gooyo baarlamanka laga goynayaa iyada iyo cidda la dooranayba sharciyadda marka la eegayo taasi waa taa waxaan jeclahay filashadii dadkaasi caawa dhan barta inoogu taagnay malaayinkeenna daawanaya baarlamanka inaynu dib ugu noqono waad mahadsan tahay waxaan doonayaa bartaada inaan hal arrin kala rafaygal xildhibaan kulmiye ka soo baxay waxaan anigu bilowgii ku dhuftay 10 sannadood baarlamankeenii waxa lumay isla xisaabtankii saddexdii dheer ee dawladnimada weli u aragti inaynu ku hadalno isla xisaabtan sharci dalkan iyo dadkan maxaa laga qabanayaa yani doodeenu faratoon iyo cabdirasaaq ha dhaafto iyo cumar iyo garuujo iyo cali dooda waxaan doonayaa inaynu ku soo celino nimanka kulmiye ka soo baxay waanu tijaabinay baashaa imika guddoomiye baarlamaan ahaa ma waxa dadka aynu ka dhaadhicin karaynaa xubin kulmiye ka soo baxdayba ajandayaasha xukuumadda baarlamanka intay sidaa u kala goyso oran karaysaa waraxa lama noqon karayna la dareera ila su-aashu waa taas filashada baarlamankan waxyaabaha kalsooni darrada imika saddexdan dhadhaar ee qodobka 7 sheegayo garsoorkii oo kale madax bannaani garsoor in la helo nolosheenna ku dhisan cidda garsoorkii badbaadinaysa ee xasaanadiisii ilaalinaysa ee la soo marinaya ee xukuumaddii dhexe yir ka odhanaysa waa baarlaman dhisan oo sharcigii garanaya
وإنه هلا قدومية محكمة سرية قدوميان محكمة سرية كترسن وثقية كالسوني سكو قبل مدحوني وأنا فرت وجويا لكرين أنا ورا كده عاون كوريا بريمان كوريا برلمان كلا صامرنا يو برلمان كوا أول حقبنا waxaan doonayaa tan labaad markaynu ka hadlayno arrintan war xildhibaanada sharaftooda iyo karaamadooda ha la ilaaliyo lama laha xildhibaan baa sidii xoolihii la iibsanaya anagu cirdiga iyo sharafta labadan xildhibaan iyo kuwa kale naga maqan barta kumaanu aflagaadeen nagamana geeyaan waxaanu leenahay karaamadan iyo sharaftan xildhibaanadu leeyihiin war mabaadi bay xambaarsan yihiine maadiyaadka iyo maaliyadda ummadda ka dhaxaysa ee lagu baayacaya ha laga daayo waxayna sharaf dara ku tahay xisbiga kulmiye taanu anagu iyagii baan u turanaan leenahay waa kreditka xisbiga ilaaliyo xanaantada noocana ka daaya waxaan ku gabagabeynayaa saaxiibkay laab saalax ayaa wuxuu yidhi soo barbaara oo cumar jaamac wuxuu ahaa xogayihii siyaasadda xisbigii ugu weynaa somalilan waa lodkii cali gure weeyaan aniguna 10 sanaan ku jiray oo dalaab saalax buugi qalin intuu soo qaatay inuu yidhaahdo duruus siyaasi ay dhigaba ahayd annaga inuu yidhaahdo soo barbaara meehay واي عمر وان كوسو نقون دونا وان كوسو نقون يا عمر وان كوسو نقون يا موضوع كلام قليا ما هو تان مثل صعوته وي واي سوكوب سؤال انه ينسوي دور سؤال علي بان دونينا ku celiyo qodob waa soo koobaya waxa weeye marka laga hadlayo 82 xubnood marka shirgudoonka laga hadlayo 82 xubnood waxa loo geeyaa baarlamaan xubno ay nominate garay magacaabeen axsaabta qaranka ee jirta tusaale ahaan isbahaysiga labada xisbiga kolleejka sameeyay way soo gudbiyeen cidii ay u nominate gareeyeen ay miiska geynayeen laakiin kulmiye taanu haysana wax weeyaan ka hadlayaa nominationkooda wuu cad yahay Mr. Faraton labada kale ayuu ka qaatay xisbiga u cid iyagu baana miiska tagi doona laakiin su'aashaydu waxa weeye laakiin adigu ma Umar ma waxaan leeday xisbigii kulmiyo ku dhawaaqay man anuu ugu dhawaaqaya labada xildhibaane uu ku xigeenada ka dhigay inay isagu mu sheegin haayo idinka isbahaysigu idin sheegay Faratoonna uu sheegay kulmiye labadii kale wali gacan uu ku jirto ka dhigay marka waxaan leeday anaa yeedhinayo oo inuu labadii kale sheegaan yeedhinaya adoo isbahaysiga horta waxa yiraahdaan Soomaalidu madal marxaati dhigo maxaa loo jiray waxaan marxaati idin ka dhigaya durba ogaa doontaan inuu kulmiyo soo magacaabayo laba u cida markay dhacdaha inoo haato marka uu ka tagayana ragiisa kala ahaa sida guruujo kale markay dhacdaha inoo haato guruujo markuu ila tartamayo oo ku faraxsanahay miiskeena la wada geeyo hadduu iga helana waa inuu haniyay laakiin in laga tagayo oo niman u cida la qaadanayo ayaa anagu waa maansatay Somaliland way guruujo doonay inaad ka jawaabto way ha ما ندري بعد دماغك وأنا وقت كان ديني لأني أول ما سنتي وندري بعد دماغك صاحبك بركضوع الشيء إن قف كلمية كمدي أنا وناك سنة كرينو أنا ما ندى لودي بكرين صاحبك عمرنا وحشة إن يحسب يهان تدخل دي شرحنا أي دارية هرتا قف واحد دارك وين اللي جوا من أميجرته waxa saab TV barnaamijkii culum musharaxaaga ka sheegay in la dhaariyay oo nootaayo laga qoray dad xisbigooda wada kuwa la leeyahay waa taariibna kuwii sheegay baa kamid ah horta qofka xisbiguna ma xidho dhaarta qofka xidhi weydana wax kala xidhi maayana shakhsiyadiisa barkada u xidha marka waxaan ku leeyahay qof kulmiyo wanaagsan uu jiri karaa waa nagaaba wanaagsan qof u cida oo dhaarta ay sheegayaan ku istaagi waayay نوا كا صاحبك عمر كعبانيا هل كانوا ليه صاحبك عمر سامع أنا قوان سوقد بنينا عمر واحد كله فين لما هي بريا دو برخدي صوت هذا مر كانوا كلها كله يسقى بقدومين مدري كاجر دوي ما حاودي ده واحد حسبيه كل شيء شرع معها مرت شرف تهل كوده فريسنا يرحمنا حسبيه كمدي إنك يا رنتني نوت الله أنا قلنا سدا أتشكت وان تاجنا هاي inaan ku guuleystana waa laga yaabaa haddaad ka guuleysatana sidaa tirwan kholo shaqeynaya ayaan kholo shaqeynaya waa la inoo kulaha waa maasantahay aad baa maasantahay way Somaliland 10 sano u dambeeyay yar baa qolob baan doonay xasuusiyo 10 sano u dambeeyay su'aasha cali guri bay ku socotaa
waxaa la furay 2010kii wixii ka dambeeyey xisbiyada oo ururo loo furay oo laga dhigay 2012kii waxaa baaba'ay xisbigii udub ucid iyo waxaa soo hadhay kulmiye iyo xisbiga wadaniga halkaa ka soo baxay taasi waxay keentay inay lumaan matalaadii xildhibaanadii baarlamaanka Somaliland ay u kala fadhiyeen mucaarid iyo muxaafid iyo isla xisaabtanka waa halkay doodeen waafaqsan tahay imika iyadoo golahani cusub yahay waxaa malamariyay golayaasha kala duwan oo Cabdiqaadir Indhayn loo xildhibaan halka ka siin doona Cabdiqaadir Maxamed Xasan intaana siina cali guri aan ku horeynayo in la doonayo in la furo ururadii siyaasiga ahaa dhibaatadii ka dhacday in la isla xisaabtan la'aan ay ka timaado golihii wakiiladii hore ma ka dhici doontaa golahan wakiilada haddii ururadii la furo oo xildhibaanadii ka soo baxay saddexdan xisbiye imuku ay waayaan matalaad ay ku matalaan sidii ku dhacday saddexdii xisbiye hore arrintaasi khatar ma ku keeni kartaa isla xisaabtanka Somaliland iyo xildhibaanada iyo xukuumadda inta aanan u gelin horta shirgudoonka la isku maandhaafay Cumar aan la kaftame waxa uu dara inuu gurija tartamo waanan rumaysanahay oo waan la qabaa in kulmiyana uu soo qaadan doono iyagoo aan xaqa gurije xaq u lahayn inay u diidaan haddana inay jecel yihiin si ay u kala qaybiyaan mucaaridka inay soo dhigaan laba musharaxoon xisbigooda ahayn xisbigii ay ka soo baxeen aanay heshiis ku wada gelin oo u cida inay soo dhigaan maalin hore la weydiiyay waxaan sida ilkahan ligliganaya ay xildhibaanada u cid ligliganaya waayo markooda hore aanay xisbiga ka soo jeedin marka guraaradkayga arrinta dhex ka noqon maayo dhexdhexaadna maanihi iyo ma fiican golahan sidan loo kala leeyahay 250 ay mucaarid ku leeyihiin ka soo baxeen sadana ay ka soo baxeen xisbul xaakimka inuu noqdo golo uu hogaamiyo muxaafidku oo kulmiye hogaamiyo oo xisbul xaakim iyo inay hogaamiyaan inta tirada badani dhinaca ay ka soo baxeen oo uu noqdo mucaarid gole muxaafid qoyar socda oo macquula oo dad isku wad leh oo mucaaridka ka soo baxay ay hogaamiyaan waxaan taageersanahay ta dambe waayo ma kala jecel shakhsiyaadka laakiin waxaan u arkaa inay dantu sidaa ku jirto mar haddii aynu madiyaas ka dhiganay waxa aynu u baahannahay koobaad ee uu baarlamaankan cusub inuu kaga duwanaado kuwii aan soo tiriyay ay tahay madax banaanidiisa inuu ka madax banaanaado maamul iyo fulinta inuu ka madax banaanaado de hadduu isla sidii dhaqanka inoo soo ahayd ay iyagu haddana hogaamiyaan anigoo bikulli ixtiraam ma aqaan anigu Cabdirasaaq laakiin waxaan aqaanaa Yaasin Faratoon waan soo wada shaqeynaa waan nin qiyaam leh waan nin akhlaaq leh waan nin waay araga da kasta uu yahayna waa nin aan hubo in oo aan ku kalsoonahay laakiin de soddon xildhibaan buu xisbigiisa ka soo baxay marka inuu hogaamiyaan kuwani waan ogolahay taa horta furitaanka ururada anigu waxaan qabaa inay yoolbaadh tahay rabba uma qabo waxay yoolbaadh u tahay xisbiyadan muddadoodii liisanadoodu waxay dhacayaan December 2022 intaas ha la furo marka haddii xataa la furo waqtiga la tartansiinaya ee ay bedeli karaan kuwa cusub kuwa soo baxa waxa weeye December waqtiga xeerkan la sameeyayna ma cadaynayo horta xeerkani ma cadaynayo in halkii 10 sanadood hayd 9 sanadood laga dhigay oo December tan ay noqonayso ilaa way ka dhigi karaan baarlamaankan hore iyo kanaba laakiin ma cadaynayso inta waxa ka horeysa in guurtidii la doorto
waxaa ka horeysa in madaxtooyadii la doorto wixii ka dambeeya xataa iyagoo ururadu furan yihiin ayaa doorashada madaxtooyada la gelayaa laakiin inta gelaysa waxay noqonayaan dee saddexdii xisbi goorta la tartansiinayaana waxaan qabaa inaanay isla December noqon karin oo waayo December waa marka madaxweynaha la doortaa uu xilka la wareegayo marka macnaha uu samaynayo xeerkan 14 amendmentka lagu sameeyay ee aan ahayn in laga guuray ururadii ku soo bixi jiray tartanka golayaasha deegaanka intaasoo qura intaa laga guuray ayuu xeerkaasi noo sheegaya wixii kale waa sidoodii xildhibaan cabdiqaadir maxamed xasan oo Star Warkii Star War markaad maqashaan intaad xasuutaan markaa kelmad baan siin doonaa horta caawa farxad bay ii tahay inaan doodan idinkala qayb galo dhammaantiinna qof walba halkiisaa ku salaamaya iyo taytalkiisa mid waa sixitaan ilaa binaadmi baan oo hadalkii haddii laysiiyey saaxiibadayda aanu berri koliiga noqonayno inaan tilmaamaa baan jecelay kow horta magaca baarlamaan la yidhaa laba golaa la yidhaa haddeer waxaa idinka maqlayey golaha baarlamaanka war golaha wakiilada laydin yidhaahdaa golaha baarlamaanku waa labada gole ee guurtida iyo wakiilade shaadhaydaan lahaynoo talonina waa tilmaan dadmiinisdee shalay waa ururada waxa lagu gelayey walihiinna markaa waxaan jecelahay inta aad gaadhaysaan meeshii ee wax akhriyaysaan ee xeerhoosaadkiinnii samaysanaysaan ee dhaaranaysaan ee isbaranaysaan ee guddiyadiinna samaysanaysaan ee waxa qaldanee meesha yaalle aad u imanaysaan inaydaan midhiyaha ka horraysiinay madasheeda aad la sugtaan intaasina waa iga dardaaran midh kaftanana waan raacinaya waxaan maqlayay lacag war meeshii anoo qaylinaya may u aragteen golaha horta may aragteen anigoo le saleebaanuu golaha naga xidh oo handaraabka meesha ka fog u tag ninkanoo hadda nabadgelyaanu ka hadlayna maalinta ninkii isle lacag buu muuse bixiyaayow ilaahay ha kaa soo siiyo waad soo arki waxaa laga yaabaa in caawo ciidamada qaranka uu beebeeye u iibiye hadday suuragal noqoto in intiinani haddaa u tagtaan oo tidhaahdaan iskuulla noo dhiso idiin dhiso laakiin iga walaan $20 loogaga soo qaadayn hebel baa raacaya iyo hebel dowladihii hoosaa ka helnaa dowladihii hoosee faraha badnaa intees raacday mucaaridka soomay badnayn iga walu muraadba ka lahayn ninkii kaga doonanayo anigu waan kuu fasaxaye kaga soo qaado laakiin wax ka wanaagsan baa ka helaysaan garoomaa ka helaysaan iskuullaa ka helaysaan ciidamaa ka helaysaan waxyaabo badan oo kale ka helaysaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin waan idin salaamaya